بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو وناكسن دمان بدغيستياشا قيميغا قايها مدن هودا نغا دغيسانيو halkani waa codka Soomaalida Finland SSM oo goorahan kala aad uga barateen inaanu idin ka soo tabino wararkii ku saabsanaa viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale maanta oo khamiisa bisha December ay tahay 17 ayaa hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga dalkan Finland waxa ay shaaca ka qaaday in viruska corona laga helay 358 qof oo hor leh dalkan Finland iyadoo tiro dhimasho cusub oo 12 xaaladoodana ay soo korortay maanta tirada guud ee dadka laga helay viruska corona ee Finland ayaa waxay noqonaysaa haatan 32,228 qof isku darka guud ilaa iyo 65 magaalo oo dalkan Finland kamid ah ayaa laga helay viruska waxa ugu badan meelaha viruska laga helay gobolkan Helsinki iyo Uusimaa oo laga helay 214 qof iyo gobolka Varsinais-Suomi oo 55 qof laga helay magaalooyinka laga helay tirada ugu badan ee viruska ayaa sida tan soo socota Helsinki 132 Turku 34 Vantaa 33 Espoo 20 Nurmijärvi 5 Järvenpää 4 Kerava 4 Tuusula 4 Tampere Jyväskylä ja Kajaani min 6 ayaa laga helay Oulu iyo Lahti iyo Kaarina min 5 qof ayaa laga helay Pori iyo Hämeenlinna min 4 qof ayaa laga helay Raisio Lieto Loima Naantali Vaasa Korsnäs Uurainen iyo Litti oo laga helay min 3 qof iyo gobolada Pohjois-Savo iyo Etelä-Savo oo isku darka guud min 4 xaaladood gobolkiiba laga helay xanuunka viruska corona awgiis waxa isbitaalka ugu jira 264 qof sida ay sheegtay hay'adda THL kuwaasoo 27 kamid ay ku jiraan qaybta gargaarka degdega ah sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka iyo nolol wanaagga THL tirada dhimashada ayaa tan iyo markii cudurka safmarka bilowday dalkan Finland waxa ay haatan maraysaa 484 qof kadib markii sida ay sheegtay hay'adda THL 24 saac la soo dhaafay 12 qof oo hor leh ay u dhinteen viruska corona sidoo kale wararka gudaha ee dalkan Finland ee ku saabsan viruska corona ayaa waxa ay tilmaamayaan in magaalada Kouvola isbitaalka ku yaala ee la yiraahdo Pohjois-Suomen sairaala laga helay 8 bukaanka ah iyo 6 shaqaalaha ah viruska corona faafista viruska corona ee isbitaalka laga helay waxa dheer in laba waaxood oo kale isbitaalka ka tirsan ay dad badan u nuglaadeen viruska corona 49 kamida bukaanka iyo 25 qof oo shaqaalaha isbitaalka kamida ayaa u nuglaaday viruska corona iyadoo dhammaantoodba karantiin la geliyay kuwaasi oo karantiilka qaybtii ugu horeysay ay maanta ilaa berrito ay ka bixi doonaan ilaa iyo iminka waxaan la ogeyn halka uu ka soo bilowday faafista viruskaasi sida ay sheegtay dhakhtar sare oo ka tirsan isbitaalkaasi oo la yiraahdo Maria-Liisa Mantuma sidoo kale isbitaalka la yiraahdo Rovaniemi sairaala oo isaguna dhibaato xagga faafista viruska corona ee baryahan ka jirtay ayaa haatan wararkii maanta ka soo baxay waxa ay tilmaamayaan in 2 qof oo kamid ah bukaankii viruska corona uu ku dhacay isbitaalka ku jiray ay xanuunka awgiis u dhinteen waxaana ilaa iyo intii xanuunka isbitaalkaasi uu ka bilowday u dhintay 4 qof oo kamid ah bukaankii isbitaalkaasi jiifay intaasi waxa dheer in 1 qof oo hor leh oo cusub laga helay viruska corona iyadoo qofkaasina haatan uu yahay shaqaalaha mid kamid ah ilaa iyo bilowgii bisha December oo isbitaalkaasi uu ruuxay faafista viruska corona ayaa dadka laga helay tirada guud marka la isku daro waxa ay marayaan 74 dhinaca kale xadeyntii isu imaatinka ee 4 gobol oo kamid ah gobolada dalka ayaa la sii adkeeyay taasi oo ka bilaabanaysa 22 bisha December kuna eeg 17 bisha koowaad ee sanadka soo socda maamul goboleedka la isku yiraahdo bartamaha iyo galbeedka ayaa isu imaatinka xadeyntii 20 qof ahayd waxa ay ka dhigeen 10 qof maamul goboleedkaasi bartamaha iyo galbeedka waxa ku bahoobay gobolada kala ah Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa iyo Vaasa waxaana sidoo kale gobolka Birkamaa iyaguna ay ka dhigeen 10 qof isu imaatinka xadeyntii loogu talagalay ilaa iyo 17 bisha koowaad go'aankaasi waxa uu khuseeyaa wixii ka badan 10 qof ee isu imaatinka guud iyo goobaha guud ee dadku isugu imanayaan ee gudaha iyo dibadda ah iyadoo laga dhigay oo kaliya 10 qof wixii ka badan aan la ogolayn sidoo kalena loo soo jeediyay in ay ku dadaalaan kala fogaanshaha iyo nadaafadda
sida maamul goboleedkaasi uu sheegay, xadayntaasi waxa ay khusaysaa dhammaan waxyaabaha ku saabsan isu imaatinka ee gobolkaasi ama maamul goboleedkaasi bartamaha iyo galbeedka, waana mid haatan xasilisay faafistii viruska corona, laakiin maamulku waxa uu sheegay inay weli aysan ahayn mid ku filan. Sababtaas awgeed ayaa xadayntaasi haatan looga dhigay 10 qof. isu imaatinkaasi waxa uu khuseeyaa suuqyada, riwaayadaha iyo dhacdooyinka isboortiga ee dadweynuhu ay kasoo qaybgalayaan. waxaa arrinkaasi ka baxsan shirarka howlwadeenada dowladda isugu imanayaan, inkasta oo loo soo jeediyey iyaga laftigooda inay dhinaca internetka ay ka dhigtaan. haatanna wararkii dibadda. dalka Mareykanka ayaa mar kale waxaa jabay rikoorka dhimashada viruska corona ee 24 saac gudaheeda, waxaana wararku ay tilmaamayaan haatan in 24kii saac ee lasoo dhaafay 250,000 oo qof laga helay viruska corona, iyadoo dhimashaduna ay kor u dhaaftay 3,700. howlwadeenada caafimaadka ee dalkaasi Mareykanka ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in haatan isbitaalada dalkaasi ay jiifaan tiro ka badan 113,000 oo qof oo qaba xanuunka viruska corona, taasi oo iyada laftigeedu ah rikoor cusub. waxaana howlwadeenada dalkaasi Mareykanka haatan ay ka cabsi qabaan in xaaladda faafista viruska corona ay kasii darto dhammaadka sanadka, markaasi oo ay bilaaban doonaan fasaxyadii bisha December. dalka Denmark ayaa mar kale waxa ay sheegeen in ay adkeynayaan xadaymihii looga hortagaya faafista viruska corona. laga bilaabo maanta oo Khamiisa waxaa la xiri doonaa dhammaanba suuqyada laga dukaamaysto iyo dukaamada waaweyn. maalinka ciidda masiixiga ama 25 Decemberna waxaa la xiri doonaa dhammaan dukaamada, marka laga soo reebo dukaamada raashinka iibiya iyo farmashiyaha. horena waxaa loo xiray maqaayadaha iyadoo loo ogol yahay oo keliya in cuntada hore looga sii qaatay takeaway-ga ay bixiyaan. sidoo kale dalka Sweden oo xaaladiisa faafista viruska corona ay maalmahan kasoo daraysay ayaa wararku waxa ay tilmaamayaan in 24kii saac ee lasoo dhaafay 91 qof ay u dhinteen viruska corona, taasi oo tirada dhimashada tan iyo intii xanuunka safmarka uu ka bilowdo Sweden ka dhigaysa 7,893. madaxa hay-adda cudurrada faafa Andreas Tegnell ayaa waxa uu telefishinka u sheegay in uu ka xun yahay in arrinta ku saabsan dhimashada ay tahay mid sida dhabta ah sii badanaysa toddobaadyada soo socda. sidoo kale dowladda Sweden waxa ay sheegtay in 24kii saac ee lasoo dhaafay 8,881 qof oo hor leh laga helay viruska corona, taasi oo tirada guud ee dadka laga helay viruska corona tan iyo intii xanuunku ka bilowday Sweden ka dhigaysa 357,466 qof. waxaa qaybta gargaarka degdega ee isbitaalada ee Sweden jiifa haatan tiro gaaraysa 3,691 qof oo iyagu la ildaran viruska corona. dhinaca kalena boqorka dalkaasi Sweden Carl Gustaf oo isagu ka hadlayay dib u eegista sanadka ee qoyska boqortooyada oo sanad walba uu khudbad ka jeediyo telefishinka ayaa waxa uu sheegay in dalkiisu uu ku guul daraystay wax ka qabashada daryeelka viruska corona. waxa uu hadalkiisa ku bilaabay uu yiri, aniga waxay ila tahay in aan ku guul daraysanay arrinkaasi, isla markaana dad badan ay naga dhinteen buu yiri, taasi oo ah arrin aad u murugo badan oo dhammaanteenba aan ka murugeynayno. dad badan oo arrimaha siyaasadda u kuurgala ayaa waxa ay dhaleeceeyeen hadalkaasi boqorka, iyagoo ku eedeeyay in boqortooyada haba yaraatee aan loo ogolayn in ay faraha la soo galaan ama ka hadlaan arrimaha siyaasadda dalka. dhinaca Jarmalkana wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Jarmalka Jens Spahn ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in ay qorsheynayaan in wadamada Yurub oo dhan ay hal mar tallaalka ka bilaabi doonaan 27 bisha December haddii la helo buu yiri ogolaanshaha tallaalka ilaa iyo xilligaasi. Mr. Spahn waxa uu sheegay in Jarmalku uu bilaabi doono 27 sidoo kalena wadamada kale ee reer Yurub ay maalinka bilaabi doonaan haddii hay-adda daawada ee wadamada ku bahooba Yurub ee EMA loo yaqaano sida ay sheegtay Isniinta ay soo gudbiso ogolaanshaheeda ku saabsan tallaalada ay soo saareen shirkadaha Pfizer iyo BioNTech. golaha midowga Yurub ayaa kadib isaguna waxa uu bixin doonaa ansixintiisa ugu dambeeya, waxaana la filayaa in golaha midowga Yurub go'aankiisa uu soo saaro 23 bisha December. dalka Jarmalka oo meelaha aadka u daran ee haatan xanuunku ku faafaya kamid ah ayaa maanta oo Khamiisa waxaa la sheegay in 24kii saac ee lasoo dhaafay laga helay viruska corona 27,000 oo qof.
hase yeeshee cillado xagga farsamada awgeed ayaa waxaa dib ka soo baxay in 3,500 oo laga helay viruska corona aan la sheegin markaasi, taasi oo kor u qaadaysa tirada guud ee laga helay viruska corona 24 saac ee lasoo dhaafay, isla markaana ka dhigaysa in ka badan 30,000 oo qof. guud ahaan dalka Jarmalka ayaa tirada guud ee laga helay ilaa iyo iminka waxay maraysaa 1.4 milyan. wararka ka imanaya dalka Faransiiskuna waxa ay shaaca ka qaadayaan in viruska corona uu gudaha u galay qasriga madaxtooyada kadib markii xogeynta madaxtooyadu ay sheegtay in madaxweynaha dalkaasi laga helay viruska corona, waxaana uu aaday baaritaanka kadib markii uu isku arkay qaar ka mid ah astaamaha xanuunka, hase yeeshee ma aanay sheegin faahfaahinta astaamahaasi. waxay sheegeen in weli haatan madaxweynahoodu uu tugtug leeyahay, isla markaana uu shaqayn karo, shaqadana uu 7 maalmood ee soo socota ka qaban doona dhinaca internetka. hase yeeshee waxaa la baajiyay kulamadii iyo booqashooyinkii madaxweynuhu uu samayn lahaa, sida booqashadii la filayay inuu ku tago Lubnaan. weli lama oga cidda Macron taabsiisay ama uu ka qaaday viruska corona, laakiin waxa ay sheegeen haatan in ay ka baaraan degayso madaxtooyadu arrinkaasi, isla markaana la baari doono ama dib loo eegi doono dhammaan dadkii uu la kulmay maalmihii lasoo dhaafay. qaaradda Yurub ayaa wararka ka imanaya waxay sheegayaan inay tahay qaaradii ugu horeysay ee dhimashada viruska corona dadka uga dhintay ee kor u dhaafeen 500,000. sidaasina waxaa laga soo xigtay wakaaladda wararka AFP. Yurub dadka laga helay viruska corona ayaa ilaa iyo iminka waxa ay marayaan 23 milyan. qaaradaha Latin America iyo Caribbeanka ayaa dadka uga dhintay viruska corona waxa ay gaarayaan 477,000. Mareykanka iyo Canada marka la isku darana 321,000, halka qaaradda Aasiya 208,000 oo qof uu virusku kala tagay. bariga dhexe 86,000, Afrikana 57,000. ugu dambeyntiina dalka Poland oo la daalaadhacaya wax ka qabashada faafista viruska corona, isla markaana isku dayay xadeemo kasta oo looga hortagayo, ayaa wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Adam Nerezirski waxa uu sheegay in dalkaasi uu ka bilaaban doono waxa uu ugu yeeray karantiilka heer qaran 28 Diseembar. karantiilkaasi heer qaran ayaa ujeedadiisu ay tahay in sanadka cusub wadanka oo dhan uu ka jiri doono bandow xagga socodka ah. dhammaan hoteelada, xarumaha lagu ciyaaro ciyaaraha barafka iyo suuqyada waaweyn ee laga dukaamaysto ayaa la xiri doonaa. waxaan ka codsanayaa buu yiri Mr. Adam dhammaan dadweynaha reer Poland in qof kasta oo ka mida naftiisa uu mas'uul ka qaado, isla markaana uu ka fakaro daryeelka dadka kale. waan ogahay buu yiri in codsigaygan uu waxba tari doonin oo dad badan aysan dhag jalaq u siin doonin, laakiin waa mid muhiim ah. sidaasi ayuu shirkiisa jaraa'id ku sheegay. dhegeystayaasha qiimiga ee qaayaha mudan ee hawada naga dhegeysanayo, wararkii viruska corona ee Finland iyo caalamka intiisa kale oo aad kala socoteen codka Soomaalida Finland SSM, dhammaantiin waxaan idin leenahay intaa ayuu maanta ku egyahay. tan iyo inta aynaan ku kala bixin barnaamijka, bal aan dulmar yar ku sameeyo talooyinka ay soo jeedinayaan howlwadeennada caafimaadka. haddii aad isku aragto ay leeyihiin astaamaha xanuunka haba yaraadaane, waxaad aadaa baaritaanka viruska, gurigaagana ku jir oo ha ka bixin ilaa iyo inta laga soo cadaynayo in xanuunka laga helayo in kale. dukaanka, shaqada, farmasiga, goobaha hiwaayada meelna ha aadin. markasta waxaad ku dadaashaa kala fogaanshaha oo ah masaafadii 1 ilaa 2 mitir. gacmaha si fiican mar walba isaga dhaq. haddii aad qufacayso, isticmaal waraaqda sanka, ama haddaadan waraaq wadan, soo laab cududaada kuna qufac oo ku hindhis adigoo suxulkaaga soo laabaya. isticmaal afshareerka markii aysan suuragal ahayn in aad dadka kale ka fogaato, iyo mar kasta oo aad goobaha la isugu yimaado joogto ama gaadiidka aad saaran tahay. waxaad soo degsataa applicationka Coronavilku oo taleefanka kaasoo wax badan kaa saacidaya arrimaha faafista. haddii aad ka timaaday wadanka dibadiisa, waa in aad gashaa karantiil oo aadan dadka hore kasoo dhexgelin, adoo marba walba la soconaya talooyinka howlwadeennada caafimaadka. haddii xanuunka uu ku dhaco, gurigaaga ku jir, maxaa yeelay qofku markuu xanuunsado waxaa la geliyaa go'doon, taasi oo ay kula soo xiriiri doonaan hay'adaha caafimaadka, isla markaana ay kuu sheegi doonaan waxa la xiriira daryeelka wax ka qabadka arrinkaasi iyo go'doonkaaga inta uu noqon doono.
hana dhexgelin dadka adigoo karantiil ku jira iyo go'doon, maxaa yeelay waa dembi weyn. mar walba raac hagista iyo tilmaam bixinta lagu siinayo, kana fogow dadka dhexdooda. xitaa hadday suurtagal tahay xanuunku kugu dhacay oo guriga aad dhex joogto inaad qol gaara hesho, waxaa habboon inaad qolkaaga gaarka ah aad ku jirto. dadka guriga ka baxsan wax xiriir ha la samayn, adigana gurigaaga yaan la imaan oon laguu soo martiin ama waxba lagaa soo doonan inta xanuunku uu guriga uu ka jiro oo karantiilka iyo go'doonka aad ku jirtaan. qof walboo naga mid ah naftiisa, tan dadkiisa iyo tan ehelkiisa mas-uul baa ka saaran ee ha dadaalo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.